dadka ku dhaqan deegaanka aadan saleebaan ee waqooyiga bariga magaalada Burco ayaa sameeyay banaanbax ay kaga cabanayaan xariga gudoomiyihii deegaankaasi Muqtaar Axmed Cali Xaad oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Burco ee la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay xariga gudoomiyihii deegaankaasi duqa degmada Burco Maxamed Muraad waxaana ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland in la sii daayo gudoomiyihii deegaankaasi sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah dabadbaxayaashaasi ay dhibaato badan ka haysato isu socodka dhanka wadooyinka ee magaalada Burco iyo deegaankaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wax garadkii iyo culimadii xaafadda hadii aanu nahay waxbaanu ka cabanaynaa quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay ilaahay ma jecela inay dad qayliyaan la yuhibbillahu jahra bisuuin إلا من ظلم ما إلهي سبحانه وتعالى إلا ضل الظلمية مويانة دد كلا إنه يسوع بحانه قيليان ما بنانو إلهي ما شاء الله لكن عد الله الظلمية إلى قيليان إلهي رالي بكيه هو يان أصاب بحني وحويان وح كنول ضد وحويان ضيرة أي كنول وح أنتي حاله بحنا عباره دعينا أنتي دجنت إن لو اللعب كلك أي كوسا كردي مركز صد حرمات أي كوا دعي وضلعان وضدي ولا جحري يجو دمي هذي الله حري iyo dadkii samafalka u waday oo la yiri ma tagay kartaan buulalbay ku jiraan waa dadan yara wixii muslim ilaahay ugu soo dhiibo ama gaalo ilaahay ugu soo dhiibo ayaa halka ay ku quutaan halkan waxaanu isugu soo baxnay saaka cabasho xaafadda ka jirta xaafadda waxay ka cabanaysaa dawladda hoose oo faragelin ku soo sameysay xaafadda loo iska degan waxaanu ka cabanaynaa gudoomiyaha Maxamed Muraad markaa waxaanu doonaynaa dawladdu inay dhex gasho oo waxa jira ay eegto qiimayso xaafadda la yiraahdo aadan saleebaan ayaanu nahay qara xaafad qulebay ahaan jirtay markii dambena dadkii abaaruhu ay ka kaceen oo joog iyo jabaan jooga ayaa ilaahay isugu keenay waxna waa buuleeyo waa kuwa halka boosha yar yar ka dhisay waxna toban bay xaafadii aqal u dul saaran yihiin sida daraadeed dadka soo dhibtaas marka hore meesha ku qaba ilaahayna u keenay waxa halka kala hadlaya madaxweynaha Musabiix Cabdiwaan uga cabanaya gudoomiyahayaga 12 sano hayst oo gudoomiye noo ahaa wuxuu noo tarmoona waxba namu yeelin waxaanu ka codsanaynaa dawladda hoose ee Burco ee cunaqabataynta nagu haysa ee gudoomiyahayaga xidhay ee jujuubtay ee halka jeelka uu ugu jiro ee xaqdarrada iyo dulmiga ku xidhay inuu naga qabto waxaanu doonaynaa in gudoomiyahayaga dawladdu wax nooga qabato gudoomiyahayaga maxay tahay noo soo daayay ayaanu doonaynaa waxa leenahay war hadda islaamka ku jirtaan hanula soo daayo Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.